Cristiano Ronaldo ayaa haatan ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda sida ay sheegayaan warbixino badan kadib markuu dhaliyay goolkii 759aad ee xirfadiisa ciyaareed. Wuxuu dhaliyay goolkaas ciyaartii ay Juventus 3-1 kaga badisay Sassuolo. balse goolashaasi ma xaqiiqba? Su'aashaas ayaa dad badan isweydiinayaan. Haddii aan fiirino goolasha uu dhaliyay, Ronaldo ayaa 5 gool u dhaliyay Sporting Lisbon, 118 wuxuu u dhaliyay Manchester United, wuxuu 450 gool u dhaliyay Real Madrid iyo Juventus oo uu 84 gool u dhaliyay, halka 102 gool uu u dhaliyay xulka Boortaqiiska. sidaas darteed wax shaki ah kuma jiro xisaabta goolashiisa. laakiin jahwareerka ayaa u muuqda inuu ka imaanayo ciyaartoydii hore ee tartankan gaarka ah kula jira. Joseph Bitson waa ciyaaryahanka ugu goolasha badan kubadda cagta marka laga reebo ciyaartoyda aan weligood ciyaarin heerka ugu sareeya, kaas oo dhaliyay 805 gool iyadoo ay ku qaadatay kaliya 530 kulan. Romario oo dhaliyay 772 gool iyo Pele oo dhaliyay 767. Bitson oo dhintay 2001 wuxuu u soo ciyaaray 5 naadi oo ay ka mid yihiin Rapid Vienna, Slavia Prague iyo sidoo kale Austria iyo Czechoslovakia laga bilaabo 1931 ilaa 1955. balse goolashaas waxaa ka mid ah 27 gool uu dhaliyay mar uu la ciyaarayay tiimka labaad ee Rapid Vienna iyo goolal kale uu dhaliyay kulamo caalami ah oo aan official ahayn. haddii laga saaro goolashaas, waxay ka dhigan tahay in Bitson uu xirfadiisa ku dhameystay 759 gool uu dhaliyay 495 kulan. sidoo kale ciyaartoyda reer Brazil ee Pele iyo Romario ayaa lagu muransan yahay goolasha ay dhaliyeen. labadooduba waxay ku doodaan in ay dhaliyeen in ka badan 1000 gool. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa jabiyay rikoorkii u yaalay Pele oo ahaa rikoorka goolasha ugu badan loo dhaliyay hal koox kaliya, rikoorkaas oo ahaa 643 gool. balse kooxda Pele uu dhigay rikoorkaas oo ah Santos ayaa sheegtay in goolashii Pele ee uu dhaliyay ciyaaraha saaxiibtinimo ay mudan yihiin in lagu daro xisaabta, taas oo goolasha Pele ee Santos ka dhigaysa 1091 gool. Romario ayaa isagana sidaas oo kale xisaabta ugu jiraan goolal uu dhaliyay ciyaaro saaxiibtinimo iyo samafal loo qabtay. ciyaaryahan Romario ayaa dhaliyay 745 gool oo official ah intii uu ciyaarayay kooxo ku faafsan Latin America, Europe, Asia iyo Australia. sidaas darteed, Ronaldo oo dhaliyay 759 gool iyo Messi oo 40 gool ka hooseeya oo leh 719 gool ayaa u muuqda in ay yihiin kuwa haysta xisaab aan lagu muransanayn. waxaana laga yaabaa inay noqdaan labada ciyaaryahan ee ugu goolasha badan abid.